shirkadda QETC oo ka diiwaan gashan wadamada Malaysia iyo Somaliland kana shaqeysa arrimaha waxbarashada ayaa maanta kulan ugu qabatay magaalada Hargeysa maamulayaasha dugsiyada shirkadaha waalidiinta ururada maxalliga iyo haldoor kale waxaana kulankaasi lagaga hadlayay dhinaca waxbarashada gaar ahaan ardayda inta badan loo qaado wadankaasi Malaysia si wax ugu soo bartaan Cabdilaahi Diiriye Liibaan Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare iyo waliba injineer Xamsi oo kamid ah madaxda QETC ayaa sharaxay waxyaabaha ay qabteen intii ay jireen iyo waliba himilooyinkooda dhinaca mustaqbalka. QETC waa company dhabahan ka diiwaan gashan wadanka Malaysia kana shaqeeya arrimaha waxbarashada ee tacliinta iyo tababarada ka shaqeeya iyo tayadooda iyo kor u qaadistooda. Sidoo kale waxa uu ka diiwaan gashay yahay company-gu wadanka oo Somaliland waa fully registered company shaqadiisuna ay tahay in uu ka shaqeeyo arrimaha tacliinta saan hore u sheegay. Professionka ay rabaan in ay xiiseynayaan inay bartaan ay tahay iyo businesska iyo trendka magaranaysa economiga iyo dhaqaaluhu xagga u jeedo ay ruuxaantii ugu yimaadaan inaga wareystaan waxyaabaha aanu markaa kala talino waxa kamid ah in aan la raadino institutionka iyo jaamacadda ku habboon ee tacliineed iyada oo laga eegayo ardaygaasi awoodiisa dhaqaale. sanadkan aynu ku jirnay 2019ka waxay jaamacadda waxbarasho ee ka jira waddanka Malaysia ee aan idin wadaagi doonaa. runtii waxaa jira saddex jaamacad oo kala duwan oo saddex jiho oo kala duwan bixinayso marka saddexda jaamacad baan one by one idin la shaqeynaya. ka koowaad waxa weeye Principal Award Scholarship waa program aan lagu cusbay oo runtii hore loo qabtay. Scholarship labaad ee loo soo kordhay sanadkan 2019 magaciisa waxaa la yiraahdaa Yasan University Malaysia Young Scholarship. Foundation kaasi waa UN loo soo gaabiya waa foundation ka jira waddanka Malaysia oo local ah. Foundation kaasa bixinaya jaamacadda lagu bixinaya waa Unimay. waxaan oran karnaa jaamacaddan Unimay waa jaamacadda kaliya ee Malaysia ku taala ee awoodda saarta ICT waxyaabaha la xiriira computing. ogeysiiska labada bixinaya waxa weeye waxa jiri doonta xaflad kale oo dan daba socota dhicina doonta 10 bishan April 2019 laguna qaban doona Ambassador Hallka dusha inaga xigay kan ka sareeya lagu qaban doona. waxay taasi gaar u tahay ardayda isdiiwaan gelisay iyo kuwa isdiiwaan gelin doona jaamacaddan iyo cidii waalidiinteed ah ee soo raaci kara. waalidiin iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadaha qaar kamid ah iyo ururada dalka ka jira ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. waxaan u mahadnaqayaa mu'asasada markaa tacliimiga ah ee runtii ka hawl gasha inay ardaydeena markaa aqoontooda ay u sahan tagtay sahankiina wax badan oo kamid ay ku soo guuleysatay inay ardaydii halkan ka kaxayso oo ay geysan markaa Malaysiana runtii iyadana markaa ku guuleysatay iyaguna mahadnaq ayaa markaa ay mudan yihiin. Xasan Galayd wararka Cable Hargeysa.